xildhibaan Axmed Xariir Gaas iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Axmed oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee Puntland ayaa maanta waxay xariga ka jareen xafiiskan oo ay yeelanayaan caruuraha agoomaha ee ku abawaayay dagaalkii Kalshaale waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay oo soo dhaweeyay xafiiskan loo qalabeeyay xarigana looga jaray qaar kamid ah waalidiintii caruurta xafiiskan quruxda badan u qalabeeyay caruurta agoomta caruurtu intaan xafiiska loo qalabayn bay midoobeen waxayna ku midoobeen shaqo-shaqaynta lagu hayo dadkii aabayaashood sidaa u galay shaqo-shaqaynta ay ku hayaan dartood bay u midoobeen dagaal gacanana waxbay kaga geysteen oo meel baabay kaga soo hadheen oo saxaafadda igeeya ka dhacday marka haddaad idinkuna gacan ku siiseen xildhibaan ahaan waad ku mahadsantiin codsi hadday noqoto caruurtaasi isku wada grade-ba maaha qaar baan biyaha xitaa shuban karin qaarna dadkii waalidiinta ahaa ee hooyooyinkood baa iska guntaday oo magaalo jooga oo qof xanyar markii horeba lahayo miyi jooga waxba ma qabsan karo qof ama shubankii ama maxay xitaa abaartii ay magaalada soo gelisay waxba meesha kuma xitaa guri karaana ma haysto marka waxa weeye gacan qabad bay u baahan yihiin Puntland dhaliisheeda in la taabto waa xaq annagu Puntland raggii ka horeeyay agoon baa ka horeysay Puntland bay dhistay oo u dhimatay wali qof Puntland ka socdo oo agoon midaynaya ama wax u qabanaya ma aan arag nimankaasi waabana layeen oo waba sidaa laakiin kuwaas cadaawad baaba naga dhaxaysa laakiin qof Puntland waa taanu dhisano wax ka dhisanaye oo ragga yagii lagu dhisaye oo agoon bay nagaga tagtay wax ka socda Puntland oo agoon u hadlaya ama xuquuqdooda raadinaya anigu ma arag maanta ka horo idinkuna haddaad maanta u soo jeedsateen xaggii nabadgelyada waanu aragnaa meel wacan baad wax marinaysaan haddana xafiisyada waa idinkaa furay waxay la tahay maanta gobolka indho dheer ku eegteen tale xildhibaanadayada iyo dhammaan ururka salaanka kabacdi waxaan u mahadcelinayaa oo madashan quruxda badan noo qalabeeyo noo sharaxay oo noo furay xafiiskan xildhibaanintayada sharafta leh aad bay mahadsan yihiin wallaahi agoomaha lagama sheekayn karo oo iska tabaalaysan yihiin waxaan ugu baaqayaa xildhibaanintooda iyo mas'uuliintooda iyo qurbo joogtooda wixii maxaan ku sheegay gacan qaban kara inay gacan qabtaan oo ogaadaan iyo gaar ahaan xildhibaanada ka socda dawladda Puntland iyo maamooyinka iyo dadkan walaalaha maanta halkan waxa isku keenay waa hal dareenkaas oo ah dareenkii lagu laayay abayaasha inaan amarna bay laawin abayaasha maanta waa kuwa halka ku sugan nin kasta halka ku dhintana waa intan iyo in naga fog oo aan runtii ma aanan gaari waayin laakiin waqti yari awgeed iyo anaga arday baan ku gaari weynay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu meel kasta joogaan iyo meel kasta ku sugan yihiin inaanu hal mid noqono hal qacan noqono waxa la yiri farqiga tifool ma dhaqdo midda kale waxaan dawladda Puntland ka codsan xildhibaanku ka dhawaajiyay iminka manhajyada waxaan ku dhiganaa manhaj Somaliland ilaa fasalkii koowaad ilaa maanta fasalka form 3 waxaan dhiganaynaa waa manhaj Somaliland midda kale maanta ani shakhsi ahaanteyda ka gaban maayo hadii la dhaho bedka buuhood laabayaasha ku dhinteen imisa kilometer square ayuu ku fadhiyaa run ahaantii ma garan karo laakiin maanta hadii la dhaho shirki Berlin ee lagu qaybsanayo Afrika xilmu dhacay waan garan karaa Great Wall China gidaarka weyn ee China waan garan karaa maxaa yeelay sababtoo ah ma hayno manhaj nooga sheekeynayo dhulkayagii marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Puntland inaan ka helno manhaj Soomaaliya oo gaar ahaan Soomaaliya oo balaaran tahay gaar ahaan waxaan ka codsanayaa dawladda Puntland inaan ka helno manhaj nooga sheekeynayo dhulkayaga inta goobood inta bad ku fadhiyo ugu dambeyntiina waxaa halka ka hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Axmed iyo waliba sidoo kale xildhibaan Axmed Xariir Gaas oo sheegay in ay garab taagan yihiin caruuraha yaryar ee agoomaha ay ku abawaayay dagaaladii Kalshaale ayagoo sidoo kalena sheegay in ay dabooli doonaan baahiyaha aasaasiga ah ee u baahan yihiin caruuraha agoomaha sida waxbarashada biyaha iyadoo oo lagu jiro xaalad adag oo abaareed arinta aan isugu nimid waxa weeye dadkii inaga
inaga dhintay sida xaqdarrada loo dilay dadkay ka tageen inaanu dareensiino inaan la qabno murugada iyo inay dad u dhintay dadka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca iyo sharafta Buuhoodle waan ognahay inaysan daryeelkii ay u baahnaayeen iyo xaqii ay dalka ku lahaayeen iyo sharaftii ay Buuhoodle ku lahaayeen inaysan helin waa arin u baahan qof kasta oo reer Buuhoodle iyo qof kasta oo Soomaali ah in dadka Soomaaliyeed ee reer Buuhoodle iyagoo guryahoodii jooga lagu soo duulay aabayaashood iyo walaaladood iyo dadkay dhaleen iyo raggoodii la laayay laguna laayay wax aan xaq loogu lahayn in aan laga warhaynin waxbarashadooda iyo inay yihiin dad ay dhaleen geesiyaal Soomaaliyeed waxa ay u dagaalamayeen ay ahayd inay sharafta ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeeda ay ka difaacaan cid kasta oo soo weerarta ama Soomaali ha ahaado ama sheeye ha ahaadee waa isku mid qofku hadduu mar midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda uu dhibaataynayo ama ha ahaado ajnabi ama Soomaali ha ahaadee waa isku mid weeye waxa aadna ayaan darro u ah oo wax aan reer Buuhoodle ceeb ku ah dadka halka fadhiya dadkii laayay manhajkoodii in Buuhoodle lagu dhigo waxaa jira wax la yiraahdo Jewish mythology oo ah yuhuuddu waxay ku darsatay Bible-ka waxaasi wuxuu ka sheekaynayaa sheeko khiyaali ah oo yuhuuddu ay sheegto annabi Daawud baa wuxuu ku dilay Qudus gacantiisa 2,000 oo Falastiiniyiin arintii oo kala halkan ka socota SNM iyo Somaliland manhajkeedii baa dad Soomaali ah oo reer Buuhoodle oo culimo qaarkood yihiin intay soo qaateen oo lacag ku soo qaateen ba dadkeenni loo dhigaya ma suurtoobi karto Falastiiniyiinta la haysto ee Qudus jooga in wixii yuhuudda ee beenta ahaa ee nebiyada lagu maagay loo dhigo idinkana inay suurtagal siday ku noqotay reer Buuhoodle laga rabaa sidii aabayaashin loo dilay in inta lacag lagu soo qaato manhaj laga dhigo Iskandariyada Buuhoodle qayb ka mid ah lagu dhigo arinta jawaabteedii reer Buuhoodle ka sugeynaa intii maanta waxa weeyaan waa madal aad iyo aad u qiimo badan oo runtii aan halkaan isku nimid annaga oo door bidayna inaanu aragno agoontii mujaahidiintii ku dhintay dagaaladii Kalshaale Hagowgana iyo Sool joogto runtii qiimo badan bay noogu fadhiyaan waana maalin aad u qiimo badan sharaf iyo karaama ayaana mudan tihiin sidoo xildhibaanku sheegay waxay u dhinteen calanka Soomaaliyeed waxay u dhinteen degaankooda iyagoo difaacaya qofkii kugu soo doonta degaankaaga haddaad ku dhimato runtii jannada hore ka galaysa waxa weeyaan waxaan filaynaa mujaahidiintaasi difaac fi nafsi bay ku jireen naftooda iyo maalkooda iyo degaankooda ay difaaciyeen waxayna ka difaacayeen dad doonaya in calan iyo dawlad ay Soomaali ku kala jarayaan samaystay ku khasbaya dadkaasi runtii waxaan ugu baaqaynaa inta hadda ka hadhay in ay ka waantoobaan in deegaankan ay ku khasbaan in ummadda Soomaaliyeed kala jarkeeda ay ku khasbaan oo wax aad looga xumaado maanta in iyaga oo waxaasoo dhibaato ah geystay dadka maatada ah dhalinyarada ah kaarayaasha marsiiyey waad aragtaan sawirada halka ka muuqda kaara madaxa laga marsiiyey lugaha laga marsiiyey waa caruurtan haweenkan iyo gabdhahan
waalidkood hooyooyinkood raggoodii weeyaan raggaas labadii gabdhood hadda naga horeeyay ee ururka xogayaha iyo gudoomiyaha ka waalidkood ayaa lagu dilay qoyskoodii dhan baa lagu qumaaday hadeerna runtii qaarba u sii ooman oo runtii raba inay iyagana dilaan arintaasi arin deegaanka mardama ka suurtoobaysa maaha dadka ay soo dirsadaan runtii ee u adeegaya ee deegaankan u dhashay marka hore bal ha arkaan dadkan waalidkoodii lagu laayay sawiradan hadda wadaan wixii halka ka dhacay wax la ilaawi kara maaha haday iyagu leeyihiin maana ilaawin dawladda siyaad bare wixii noo geysatay anagu ilaawumeena wixii kal shaara ka dhacay habeenii maalin ayaa u taagnaanayna dawladdu garab bay ku seenaysaa sida ay idinka difaaci lahayd dadka wax maxaysatada ee midnimada Soomaaliyeed kala jaray waxaynu rabnaa in si wada jir ah inaga hornimaano oo ay ku ana qaataan dadka deegaanku wixii halka ka dhacay anagu shakhsiyan anaga iyo xildhibaanada deegaanka waxaan ballan qaadaynaa in aan ka shaqeyno danta agoonta kalshaar iyo ururka ay ku midaysan yihiin maanta waxaa farxad noo ah in xafiiskii u horeeyay aan u furno oo ah meesha ay runtii iska warqabayaan oo deegaanka iyo iyaguba ay ku shirayaan runtii baahiyahooda iyo ay noogu soo gudbinayaan waxaan ballan qaadaynaa xilligan adag ee lagu jiro abaaraha in agoonta tuulooyinka jooga aan ka warhayno oo biyo dhaan u sameeyno oo inta Ilaahay roob inoo shubayo aan ka warhayn runtii waa ballan qaadaynaa waxaan ballan qaadaynaa oo kale inaan ka shaqeyno waxbarashadooda iyo sida ay u heli lahaayeen wax allaale wixii degaankooda ay ku heli lahaayeen aad baa maasatihi maxamed cali bile warbaahinta daljeer buu hoodle bishaaro macmiil adeega akoonto akoon ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay bahwadaagta yihiin bangiga salaam sida salaam Somali Bank, Dar es Salaam Bank iyo Salaam African Bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka Djibouti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantii qaabka loo adeegsado akoonto akoon adigoo isticmaalaya teleefoonkaaga Golis fadlan raac talaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga Golis lambar 8 oo ah Salaam Bank dooro lambar 5 oo ah akoonto akoon geli akoonka lacagta u wareejinaysid ee Salaam Somali Bank ama Dar es Salaam Bank ama Salaam African Bank markii ay gelisid faahfaahinta iyo lacagta waxaa ku soo dhacaysa lambarka xaqiijinta oo ah OTP number dib ugu soo noqo lambar 5 oo ah akoonto akoon kadibna ka dooro lambar 6 oo ah hubi akoonto akoon geli 8 lambar ee fariinahanta kuugu soo dhacaysa ambaliyo macmiil waxaa ku guuleysatay lacag wareejintii waxaana kuu fududeeyay bangiga salaam